sanadaan ka joognaa macaan subaxdii aad dhooftay. waxaa si dhammaystiran u soo baxay muuqaalka heestan oo uu qaaday Ismaaciil Danan. heestani waxay ahayd mid viral ka ah barta TikTok maalmihii ugu dambeeyay, balse muuqaalkeeda oo dhammaystiran ayaa waxa uu soo baxay muddo saacado ka hor ah. heestani waa part 2 ama waa qaybta labaad hees sanadii hore soo baxday oo uu qaaday Iskalaaji, taas oo ka mid ahayd heesihii ugu shidnaa sanadii 2025. labadan heesoodba waxaa sameeyey hal abwaan ah kaas oo lagu magacaabo Xamse Xikmaawi, balse labadan heesood waxa uu kala dhiibay laba fannaan oo superstar ka dhex ah Soomaalida dhexdooda aadna looga jecel yahay. taasna waa sababta heestan Iskalaaji uu qaado ay sanadii 2025 uga mid noqotay kuwa ugu saameynta badan ama kuwii ugu badnaa ee la daawaday sanadaas. Badhabehankii aan lahaa dheli wali weeye hadday dhammaan lahayd farxadii aybayaa dhimane halkii aad banaysay dhaxani iga soo dhicisow qoyskaan lahaa labanku sii waraa. abwaanku waxa uu ka sameeyey labadan heesood qiso jacayl oo dhab ah oo dhacday, taas oo dhex martay wiil iyo gabar isjeclaa kuwaas oo ku jira xilligoodii ugu horreeyay ee arooska ama muddo yar isqabay. wiilka iyo gabadhuba inta aysan waqti badan wada joogin ama waqti badanba aysan wada qaadan oo noloshooda ka mid ah, waxaa soo baxay safar kaas oo ahaa inay gabadhu aadi doonto meel ka baxsan waddanka ama wadamada dibadda ah. wiilka oo ahaa mid gabadha si saa'ida u jecel, jacaylkuna intiisa badan uu u janjeero dhankiisa, ayaa waxa uu u diray fariin ama u dhiibay fariintan inta aysan bixin ka hor. waan dhoofayaa saadu tiri dhaawac baanahaye dhuuniga ka go'ayo liqmadii dhaafayoo nacaye dhalanteedka waxa iigu wacan kala dhaqaaqina. badhabehankii aan lahaa dheli wali weeye hadday dhammaan lahayd farxadii aybayaa dhimane halkii aad banaysay dhaxani iga soo dhicisow qoyskaan lahaa labanku sii waraa. heestan hore oo dhan waxay ku saabsan tahay ama laga sameeyey ballantii iyo axdigii ay wada galeen, iyo sida wiilku uu la ballamay gabadha inta aysan bixin ka hor, iyo sida uu u jeclaa inuu qoyskiisa usii dhaqnaado ama uu usii dhisnaado, balse waqtigii iyo waayuhu diideen inay qoysku sii dhisnaado, balse uu gabadha kula ballamayay inuu xataa haddii ay qaadato waqti dheer soo laabashadeedu uu soo sigi doono. balse waqti dheer kadib, wax badan oo sugitaan ah iyo waqti badan oo la kala maqnaa, wax walbaahi way isbedeleen oo jacaylkii hore iyo sidii loo wada socday wax badan ayaa iska bedelay. waqti waa la isku waayey, is arkitaankii iyo wada hadalkii waa uu yaraaday. warqadan aan soo diren loofka weyn saari waxa ay ka socotaa kashkiyo gudaha saablayda ka soo gooyay urkiyo sadariga beer ka sokadiisa waxa ay ku socotaa qofkii saaqay ruuxdayda. markan 2 sano kadib markii ay wax walbaahi isbedeleen, waxaa fariintan soo diray wiilkii isagoon wax macluumaada ka haynin ama sida ay tahay ama xaalkeeduba aan warba ka haynin. waxa uuna yiri marka hore samaan iga gudoon iyo salaan diiran marka iga sidaanay hadda sifa yarkaasiyo habeenkii maseexdo hurdada waan ka salalaaye dharabtaad socdaashaan farxadda sigayoon waayey. wiilku markii uu intaas salaantiisa dhammaystay kadib waxa uu gabadhii ku sii leeyahay, markii aad safartay waxaa ka soo wareegay sannado, hadafkii aad lahayd soo ma aad gaarin,
xaalku see waaye bal fariintaada i soo sii. safarkaagu hadafkuu lahaa sow ma adi gaadhin sida tahay baliisoo akhbaar xaalku see waaye. wiilkii oo weli fariintiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi maalinkaad baxday ilaa iyo haddaba jacaylkii waa ugu siyaaday oo wakhtigaan tiriyaa oo macan samirkii waan ku daalay oo waan isdaynay macan maalin un maad soo noqotid. igu siyaadi dareenkaagu oo saaqi labatayda sikiniyo ayaantaan tirshaa socoshadaadii soo noqoshadaadu intaa uur ku sugayay samir waan ku daale mar uun qaali soo laabo. heestan waxaan filayaa sanadkan inay noqon doonto heesta qabsan doonta baraha bulshada si la mid ah heestan heesteedii kale oo lasoo qaaday sanadkii hore taas oo ahayd mid ka mid a kuwii ugu saameynta badnaa. sidoo kale heestanba intii aysan soo bixinin xasiisiinteedii ugu horreysay oo loo sameeyey ayaaba baraha bulshada hadalhayn aad u badan ka dhalisay dadkuna ay horay usii sugayeen soo bixitaankeeda iyo raadinta qisada heestan. sanadaan ka joognaa macaan subaxdii aad dhooftay mana helin xogtaadoo saxee sow ma nuuraysid safarkaagu hadafkuu lahaa sow ma adi gaadhin sida tahay baliisoo akhbaar xaalku see waaye. tahay baliisoo akhbaar xaalku see waaye.